dowladda Sacuudiga oo aan ka hadlayno ayaa ah meesha uu islaamku ku soo degtay ahna meeshii Nabi Maxamed calayhi salaam uu ka soo bilaabay risaaladiisa ilaa ay ka gaarto dhanka bari iyo galbeed ee banaanka uga soo baxdo. Dhulkan waa dhulka aad waxa ku yaala labada masjid ee aad u barakaysan dhanka islaamka marka la eego. Waa dhulka ay ka soo taliyeen dowladihii islaamka soo maray sida dowladii khulafaa ur-raashidiin iyo dowladihii kale ee Amawiyiinta iyo Cabbaasiyiinta. Dowladda Sacuudigu waxay haysataa ama ay ku sugan tahay xaalad siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degan. Sidoo kale dowladdu waxay iska leedahay dhaqaale aad u fara badan oo ku salaysan inta badan oo sal u yahay dhanka shidaalka. maxaa yeelay waddanka Sacuudiga waa waddanka labaad ee ugu weyn adduunka marka laga hadlayo keedka shidaalka, waana waddanka lixaad ee ugu weyn ee haysta keedka gaaska dabiiciga ah. wuxuu kaloo yahay Sacuudigu waddanka ugu weyn ee haysta keedka shidaal ee caalamka marka laga hadlayo keedka laga hadlayo, kaasoo lagu qiyaaso 90% keedka caalamka shidaalka in Sacuudigu uu faraha ku hayo. Sacuudiga sidoo kale wuxuu ka mid yahay dalka 19aad ee ka mid ah dowladaha caalamka ugu dhaqaalaha badan. waxaana lagu tiriyaa Sacuudigu inuu ka mid yahay dowladaha ugu saameynta badan dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka. sababtan waxay tahay booska islaamka uga jiro dhanka meelaha barakaysan oo islaamka ee ku yaala Sacuudiga, iyo waxyaabaha kale ee keenaya waxaa ka mid ah hantida aadka u fara badan ee dhaqaale u haysto. sidoo kale Sacuudigu waa waddanka inta badan jaangooya sicirka shidaalka. sidoo kale waddanku wuxuu iska leeyahay warbaahinno aad u fara badan oo dhanka satellite-ka u badan iyo jaraa'ido aad u fara badan. magaalooyinka ugu caansan ee waddanka Sacuudiga waxaa ka mid ah magaalada Maka al-Mukarrama. magaalada Maka al-Mukarrama waa magaalada ku taalo qiblada muslimiinta. waxaan lagu qiyaasaa dadka Maka ku nool in ka badan 1 milyan iyo bar, inkastoo xilliga xajka marka la gaaro ay usoo xajiyaan laab dadka badan dadka meesha ku dhaqan. magaalooyin kale ee Sacuudiga ugu caansan waxaa ka mid ah magaalada Madiina al-Munawwara, waana magaalo ka mid ah magaalooyinka barakaysan, waxaana ku yaala masjidkii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale magaaladan waa magaalada uu ku aasan yahay Nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale magaaladan waxay leedahay oo ku yaala masjidkii loo yaqaano Quba oo ahaa masjidkii ugu horeeyay ee la dhiso islaamka. sidoo kale magaalooyinka Sacuudiga ugu caansan waxaa ka mid ah magaalada Riyaad oo ah caasimadda waddankan, iyo magaalada Jeddah oo ah magaalada labaad ee waddanka, caasimadda labaad. sidoo kale magaalooyinka waxaa ka mid ah magaalada loo yaqaano Damaam, Baaxa, Ahsaa, Jizaan iyo magaalooyin kale. Sacuudigu wuxuu ka mid ahaa wadamadii intii socday dagaalkii qabooba aan dhanna la jirin ayuu ka mid ahaa. boqor Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud waxa uu noqday boqorkii 7aad ee Sacuudi Carabiya laga soo bilaabo 2015. hase ahaatee boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa wax ka bedelay qaabka dhaxalka boqortooyada dalkaasi, isagoo wiilkiisa Maxamed bin Salmaan ka dhigay ninka dhaxli doona boqornimada. ninkii dhaxalka boqortooyada lahaa Amiir Maxamed bin Naif ayaa darajadaas laga xayuubiyey, waxaana laga eriyey wasiirnimadii wasaaradda arrimaha gudaha. Maxamed bin Salmaan oo 32 jir ah ayaa sii hayn doona wasaaradda uu ku magacaabay yahay ee ah wasaaradda gaashaandhigga, wuxuuna sidoo kale yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi. isbedeladaas ayaana lagu shaaciyey dikreetooyin boqortooyo oo isxigxigay. wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga waxa ay sheegtay in boqorka uu ku baaqay in shacabku ay daacadnimo u muujiyaan amiirka cusub. Amiir Maxamed bin Salmaan oo ah nin daayar ayaa jiilka yar waxay dalacsiintiisa u arkaan inay tahay astaan muujinaysa inuu soo socdo isbedel. ka hor dalacsiintiisa wuxuu hormuud ka ahaa dagaalka Sacuudiga uu ka wado Yemen. wuxuu sidoo kale hormuud ka ahaa isbedelada dhinaca dhaqaalaha ee boqortooyada. boqor Salmaan oo 82 sano jir ah ayaa xilka la wareegay sanadkii 2015 kadib markii uu geeriyooday walaalkii Cabdullaahi bin Cabdilcasiis. dhulka dhaqaalaha iyo cuudda ciidan ee waddanka Sacuudiga ayuu inala wadaagaya Ustaad Jaamac Ducaale. dhulka Sacuudiga kala sareynta dhulku waa mid aad u ballaaran marka laga hadlayo. dhulkuna wuxuu u badan yahay dhul lama degaan ah ayuu u badan yahay oo laga helayo
togag iyo buuro laga helayo iyo dhul bacaad ah oo aad u fara badan. Wadanku waa wadan qani ah, lehna dhaqaale aad u fara badan. Wadankan waxaa usoo suuq geysta wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika, taasoo lagu qiyaaso 25% wax soo saarka wadamada soo saaraan inay usoo suuq geeyaan wadanka Sacuudiga. Wadankan waxyaabaha uu soo saaro asaga inta badan waxa ugu weyn shidaalka ayaa ugu weyn. Sidoo kale waxaa wadankan uu soo saaraa macdano iskugu jira macdanta loo yaqaano jibsiga, fosfatka iyo birta. Sidoo kale waxyaabaha uu soo saaro ama la sheego inuu keed haysto waxaa ka mid ah dhanka dahabka. Sidoo kale wadankan waxaa ka howlgala shirkado fara badan oo laga leeyahay wadamada reer galbeedka, kuwaasoo inta badan ka shaqeeya dhanka shidaalka iyo dhanka macdanta. Wadankan inkasta uu ka mid yahay wadamada loo shaqo tago ama ay ka shaqeeyaan dad badan oo ajaanib ah, laakiin cilmi baaris la sameeyey ee dowladda Sacuudigu sameysay ayaa waxay sheegtay in dadka reer Sacuudiga ah ee shaqeeya lagu qiyaaso 5 milyan ku dhowaad qof inay shaqeeyaan, halka dadka shaqo la'aanta ah ee reer Sacuudi ee aan shaqaynin lagu qiyaaso inay gaarayso 622,000 qof, kuwaasoo ka dhigan wadanka marka laga hadlayo dhanka shaqada oo la dhihi karo dadka aan shaqaynin boqolkiiba waxay ka dhigan yihiin 11.7%. Lacagta Sacuudiga waxaa loo yaqaanaa riyaal, waana lacagta waxaana la sameeyey xilligii uu talin jiray boqor Cabdicasiis Aal Sacuud oo ah aabbaha boqorka iminka wadanka maamula. Waxayna ku beegneed xilligaasi 1932 ayay ku beegneed. wax soo saarka dhanka shidaalka Sacuudiga waxaa lagu qiyaasaa inuu gaari karo 409.2 milyan oo tan, halka keedka Sacuudigana uu gaarayo 36.2 bilyan oo tan. Halkaas waxaa kaaga cad wadanku inuu haysto keed aad u ballaaran oo wax soo saar dhanka shidaalka ah, uuna awoodo inuu soo saaro 9.5 milyan oo barmiil maalintii. Sidoo kale keedadka uu wadankan haysto waxaa ka mid ah keedadka gaaska dabiiciga ah. Wadankan waa dalka afraad ee caalamka haysta keedadka ugu fara badan ee gaaska dabiiciga ah, waxayna wadankan wax soo saarkiisa u gaarayaa 9.9 bilyan mitir cubic maalintii oo ay soo saari kartaa oo gaaska dabiiciga ah. Sida ay sheegtay shirkadda inta badan ka shaqeysa howlaha shidaalka ee loo yaqaano shirkadda Aramco ee Sacuudiga laga leeyahay, wadankan wuxuu leeyahay warshado aad u fara badan sida warshadaha soo saara shamiitada, birta, oksijiinta, calafka ay xooluhu quutaan, milixda iyo waxyaabo kale aad u fara badan. Sidoo kale wadanku wuxuu leeyahay warshadaha soo saara waxyaabaha raashinka la quuto iyo warshadaha cabitaanka iyo kuwa dharka soo saara. Sidoo kale wadanku wuxuu leeyahay warshadaha soo saara waxyaabaha laga sameeyo hargaha sida kabaha, suumanka iyo boorsooyinka, iyo warshado kale oo aad u fara badan ayuu leeyahay wadanku, sida warshadaha soo saara dawooyinka iyo rabarka iyo waxyaabaha kale ee asaasiga u ah nolosha bini'aadamka, ama warshadaha kale ayana sida loo yaqaano soo saara elektroonikada, soo saara waxyaabaha ku shaqeeya elektriga sida kombiyuutarada, saacadaha, telefoonada iyo waxyaabaha kale. saas ay tahay wadanku asagoo warshadahaas aadka u fara badan leh ayaa haddana wuxuu yahay wadanka ugu badan inta badan ee loo suuq keeno waxyaabaha laga soo saaro wadamada kale ee caalamka. Dhanka beeraha markaan ka hadalno, wadankan dhulka beeruhu dhul aan aad u ballaarnayn, inta badanna kaalmo ka hela wasaaradda beeraha ee wadankan. saas ay tahay wax soo saarka uu soo saaro waxaa ka mid ah galleyga, qamadiga, sisinta iyo yaanyada iyo khudaarta cagaaran. Sidoo kale waxay soo saaraan timirta, cambaha iyo kafeega. Dhanka amniga iyo gaashaandhigga Sacuudiga waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha. wasaaraddaasi waxaa maamula amiirka loo yaqaan Amiir Cabdicasiis bin Sacuud bin Naayif, waa ninka mas'uulka ka ah imaaradaha dhulalka 13 imaaradood iyo amniga gudaha ee Sacuudiga. Sidoo kale ninkan waxaa hoostaga ilaalada xuduudaha ee Sacuudigu uu la leeyahay wadamada dariska ah, iyo amniga iyo badqabka iyo u adeegitaanka muwaadiniinta Sacuudiga iyo dadka kale ee Sacuudiga ku dhaqan iyo dadka soo booqda xajka. Sidoo kale waxaa jira dhowr laamood oo dhanka amniga raacsan wasaaradda arrimaha dibadda. Arrimaha gudaha waxaa ka mid ah laanta loo yaqaano amniga guud, taasoo kulmisa inta badan booliska, taraafikada iyo laanta loo yaqaano difaaca madaniga iyo ilaalada xuduudaha. ciidamada militarigu waa qayb ka mid ah qeymaha suga amniga Sacuudiga suga,
waxayna ka kooban yihiin ciidamada hubeysan ee Sacuudiga, kuwaas waxay hoos tagaan ayagu wasaaradda gaashaandhigga ay hoos tagaan. ciidamada ilaalada qaranka ee Sacuudiga ayana waxay hoos tagaan wasaaradda ilaalada qaranka. ciidamada ilaalada xuduudaha ayana waxay hoos tagaan wasaaradda arrimaha gudaha, halka ilaalada boqortooyada Sacuudiga waxay hoos tagaan ilaalada qaranka madaxtooyada ay hoos tagaan. ciidamada militariga iyo kuwa sirdoonkuna waxay hoos tagaan wasaaradda amniga iyo sirdoonka qaranka. ciidamada Sacuudiga waxa uu kala qaybsamaan ciidamo cirka, dhulka iyo badda. ciidamada barigu waa ciidamo aad u hubeysan, kuna hubeysan hubkii ugu dambeeyay ee casri ah. Sacuudigu wuxuu ka mid yahay wadamada ugu soo hubgadashada badan caalamka, halka ciidamada cirka Sacuudigana la aasaasay sanadku markuu ahaa 1925 waxaana dib loo habeeyey 1950. waxayna markii ugu horeysay adeegsadeen diyaarado lagu sameeyey Ameerika sanad markuu ahaa 1952. iminkana waxay ku hubeysan yihiin hub casri ah iyo diyaaradii ugu dambeeyey ee caalamka isticmaalaan ciidamada cirka. ciidamada badda Sacuudigu waxay ka kooban yihiin ciidamada ilaalada xeebaha iyo biyaha goboleedka Sacuudiga uu leeyahay, iyo ciidamada ka ilaaliya xeebaha wasakhowga in la wasakheeyo, iyo waxay ka kooban yihiin ciidamada ka hortaga tahriibta iyo dadka soo galootiga ah. diinta waddanka Sacuudiga dadka ku dhaqan haystaan waa diinta Islaamka. waxaa lagu qiyaasaa 97% dadka Sacuudigu inay haystaan diinta Islaamka. dadkaasi inta badan waa dad Sacuudiyiin ah. Sacuudiyiinku inta badan waxay haystaan sunno, ay haystaan madhabta sunnada, halka dad aan aad u fara badnayn lagu qiyaaso 10-15% ay haystaan shiicada, aaminsan yihiin shiico, gaar ahaan Jacfariyada oo raacsan daa'ifada Ismaaciiliyada, kuwaasoo ku dhaqan gobolada bari mandiqada loo yaqaano Najraan. dadka inta badan Sacuudiga ka howlgala ama shaqaalaha dibadda ugu imaada inta badan waa muslimiin, inkastoo ay jiraan dad aan aad u fara badnayn oo ah Kirishtaan, iskugu jira dad Hinduus ah iyo Buudiyiin. ma jiro qaanuun dowladda Sacuudiga dhigtay oo ilaalinaya xorriyadda diimaha. shuruudaha qofku uu jinsiyad Sacuudi ku heli kara ayaa waxaa ka mid ah qofku inuu yahay muslim, taasoo u saamaxaynin qof aan muslim ahayn inuu qaato iqaamad Sacuudiyaan ah. Sacuudi Carabiya ayaa markii ugu horeysay dumarka u ogolaatay inay daawadaan ciyaaraha garoomada lagu qabto. qoysaska ayaa awooda inay galaan garoomada ku yaala 3 magaalo oo waaweyn oo kala ah Riyaad, Jidda iyo Damaam. waa tallaabo kale oo xorriyad dheeraad ah lagu siinayo dumarka Sacuudiga oo ay saaran yihiin xayiraado jinsiga ku salaysan. waxayna arrintan daba socotaa xayiraadii wadida baabuurta ka saarneyd ee dhowaan laga qaaday dumarka Sacuudiga. dhaxal sugay Maxamed bin Salmaan ayaa wada qorshayaal waaweyn oo uu ku casriynayo Sacuudiga kuna kordhinaya dhaqaalaha dalkaasi. gawaaridu marka la joogo waddankan waxay iska baasaan dhanka midig. furaha nambarka waddanka Sacuudiga waa eber 966. ayuu ku dhan yahay barnaamijkii taariikhda dunida oon maanta ku lafagurnay boqortooyada Sacuudi Carabiya.